waxaan ka hadlayaa qodob yar oo kooban ayaan ka hadli doonaa oo ah Axmed Biif waxayna ku socotaa Axmed Biif hal la sheer gareeyo walaalayaal waxaan ii sheegayaa arrin aan rabo inaan ka warramo oo habeenadan ka seexan waay qof damiir leh oo aadna waalidka u jecel baan ka mid ahay Axmed Biif waxaad noo sheegtay inaad ka xun tahay dhibaatada hooyo ay haysato hooyo oo mataqaanaa oday adeerkaya aad cabasho ka soo jeedisay Axmed Biif taas ka gudub wixii uu adeerkaa u geysto ilaahay weynkiisa waaxidka ayaa ka xisaabaya laakiin aniga liibaan dalmaag ahaan waxaan kuu sheegayaa brother oo khalad kugu saaraya maanta hooyo oo ay mataqaanaa da'daa jirta adigoo ahaa fanaan Soomaaliyeed adigoo ahaa nin meel walba u goosha oo meel walba taga oo meel walba daga in maanta ay hooyo buushka ay ku jirto buushka ay ku jirtaan hooyo horta ka dhiliyay wallaahi billaahi tallaahi maanta haddaan dakhli haysan lahaana ilaahay abuurtay ayaan ku dhaartay maxamed sameeyay ayaan ku dhaartay anigana ay khalqay maanta haddaan wax haysan lahaa hooyo maanta hanti waan u dhisi lahaa war ma waxaad weyday Axmed Biif qol jingad ah oo $1,000 ah miyaad weyday adigoo fanaan qaran ah oo meel walba wareegay waaba se adigoo maanta culimo ah oo nin sheekha oo karaamaysan ah oo ilaahay wadadii uu ka raaliga ahaa aad martay oo maanta aad magac iyo sharaf iyo insi aad leedahay miyaad u awoodi kari weyday inaad mataqaanaa walaalkayga qaaliga ahaayo qol jingada aad u dhisto qol jingada oo $1,000 ah miyaad awoodi kari weyday waxa kale oo dhan la isla soo gaadho waxa kale oo dhan laga hadlo laakiin aniga hooyga ay hooyo degan tahay ma jeclaysan brother waxaan ka codsanaya hooyo walaalow ka bedel gurigaas almiino odaygeega ama hala joogto ama adeerka hala joogto waxaan u baahanahay inaad hooyo guri mataqaanaa haddaad wax kale awoodi weydo guri jingad ah oo hal qol ah oo fiican oo qurxoon ay hooyadaa ka soo baxdo hooyo waa shay qaaliya hooyo waa lama huraan hooyo wax la deyn kara maaha hooyo waa nolosha adduunka hooyo waa noloshaada dhan bay hooyo leedahay hooyo qof ka qaalisani ma jirto waryaa aniga kula hadlaya hooyaday baa soo korisay agoonnimo igu soo korisay allah u naxariistay aabbahay anoo yar buu dhintay hooyaday baa intaan soo leekaysiisay qayrkay wax walba waxay dooni jirtay hooyaday allah ii daayay inta hooyadood dhimatana allah u naxariisto inta u nooshahay